shirkan jaraa'iday sida wadajirka u qabteen qaar ka mid ah haweenka Hindida iyo Carabta ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay ujeedadiisu daarneed kulan ay ugu mahad celinayeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo magacaabay maareeya ku xigeenka amaha shidaalka Berbera Cafaan Maxamuud Cabdo oo ka mid ah bulshada Hindida iyo Carabta ku nool dalkani Soomaaliland sidoo kale shirkan jaraa'iday qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah haldoorka haweenka gobolka Awdal ayaa waxay halkaasi hadallo hambaliyo iyo soo dhaweyn ka jeediyeen ayaa waxay u dhacday sida tan anigoo Caasha Maxamed Bullo waxaan halkan u qabanay shirkan jaraa'id inaan ugu mahad celino madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo ah madaxweynihii ugu horeeyay ee xil u magacaaba dadka la degan ee beelweynaha Hindida ah ee la degan Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo u magacaabay maareeya ku xigeenka haamaha shidaalka Cafaan Maxamuud Cabdo aan uga mahad celinayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu mahadnaqayno madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi kaasoo ku sharifay qabiilka qoomada qaaliga ah ee Hindida ee ku nool Soomaaliland isagoo sharifay maanta qoomiyadii idlayda ballaadhnayd oo ku sharifay halkii ugu qaalisanayd Cafaan Maxamuud Cabdo waa madaxweynihii koowaad inta ay Soomaaliland dhisan tahay gartay dadka la nool in uu yagana xilka wax ka siiyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayna madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xilka uu gartay Cafaan Maxamuud Cabdo oo ah nin ka soo jeeda qabiilka Hindida ee ku nool gobolka Saaxil magaalada Berbera xilka uu magacaabay maareeya ku xigeenka haamaha shidaalka waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo gartay jaaliyadaha degan Jamhuuriyadda Soomaaliland in xil siiyo u magacaabo waa madaxweynihii koowaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland soo mara ee xil u magacaaba waxaan leenahay hambaliyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan leenahay kun jeer baan ku salaaminaa waxaanu hambaliyo ballaaran halkan uga diraynaa maareeya ku xigeenka haamaha shidaalka ee loo magacaabay xilka waxaan leenahay Ilaahay kugu asturo madaxweynahana waxaan leenahay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxaan halkan ka diraynaa hambaliyo cusub oo nu dirayno maareeya ku xigeenka saaxil ee loo tiriyay xilka Berbera waxaan leenahay hambaliyo Ilaahay xilkaas uu culisay kugu asturo waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.